السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الناصر عبد العزيز جانا قال مركان معناها كجواب إن شاء الله تعالى سؤال ونين ولا سوي دي سؤال شخص هاد فرق أول حاجة معناها سويتش كيو يهبك وحن جعله بل إن demonstration كوسم معناها أنا اسمع على صور كان حال كان أنا كوسمي habka horta kuley ma bucket tracerka macnaha aan horta u isticmaali doonaa switchka asaga cala sawirkiisa waa noocan habkan waa noocan waxaa labada ku dhegan macnaha ilaa iyo 4 computer mid walbaba dhexdoodana marka waxaan dhigay waa routerka asaga haddii ay waqtiga noo saamaxo insha allah waa dhici kartaa in wax ka nidhaa haddii kale waqti kale iska noqon doonta laakiin su-aasha ah farqiga u dhexeeya habka iyo maaragtay switchka aan hadda xoogaa diiradda saari doonaa haddii markuu koowaad horta aan ku bilaabo habka maadaama asagii uu ku horreeyey maaragtay kasoo waxaan dhihi karnaa horta habka waaba technology xoogaa laga tegey oo hadda use badan aan usii lahayn mataqaanaa waqtigaa la joogo macnaha networkingka cillado uu leeyahay oo jira awgeed laakiin kulley waqtigiisu lahaa cilladiisa ugu badanna macnaa haddaan sida ugu fudud oon u sheegno habkana waxaan dhihi karnaa waxa waaye wax oo intelligence ama wax yaroo macnaa caqli ah ma laha ma garan karo computerada dhinacyada ka kala xigaan tusaale ahaan markaan fiirisid habka okay haddii aan fiirisid habkan intaanoo computer ku dhegan wuxuu leeyahay dhowr port uu leeyahay macnaha oo intaasoo computer inta laba lagu dhiji karo hadda sidaa ujeeda ilaa iyo 6 port waa leeyahay 6diis port marka mar kulligood wax alaali waxa ku dhegan asaga ma kala yaqaan ma yaqaano computer halkaan uu ku xigo ma yaqaan halkaan uu ku xigo taas marka waxay keenayeen inuu mataqaanaa signal kasta oo soo gaara nooc rabo ha noqdee in markii uu u gudbiyo guud ahaan macnaha in alaali intii ku dhegan waxa kaliya oo uu fahmi kara waa inuusan ku celin meesha ku matalan haddii uu computerka hadda signal soo diro habka qaabka u dhaqmo waxaa waaye signalkii inta iga soo gaaray u dir god kasta oo maaragtay wax kaaga dhegan yihiin marka laga reebo kii uu ka yimid macnaha inta kuma celinaayo laakiin kulli inta kaleba u kala diri doonaa macnaha u kala dira si kale haddaan kugu fududeeyo habka waxaa dhihi karaa wuxuu u shaqeeyaa dabcan waa sida repeaterska oo kaleeto computerka markii uu wax diraayo ama traffic diraayo waxa kaliya oo mataqaanaa marka uu soo dirayo waa 010 adiga oo hadba qaab u habaysan adiga haddaa indhaha ku fiiriso waxaa laga yaabaa inay random kula ekaato laakiin computerka asaga macne u leedahay ay isla fahmi karaan labadooda kaleeto qaababka iyo ayaga waxa sharaxaad kale dheer ay noqonayaan laakiin 0110 waxaas waxaa ujeeda bit aa la yidhahdaa bitkaas computerka marka asaga macne ugu fadhisaa laakiin adiga waxaa laga yaabaa markaa fiirsan inay random ay kula ekaato waa stream waa wax dheer oo hal eber hal saas camal waa habka asaga taas aduu kala mid yahay asaga naftigiisa waxa uu ka garan kara malahan wuxuu u jeedaa signalskan mataqaanaa 1010 uma fahmo weliba korontada macnaha voltage ku fahmaa kaliya oo mataqaanaa up iyo macnaha koreeya waa hoos saas camal macnaha 01010 marka asaga waxba ma fahmi karo kaliya wuxuu fahmi karaa inuu signalkaas soo galo wuxuu marka sameynaa sida repeaterska uu shaqeeyaa signalkii waa helan naftigiisa oo macnaha oo sidiisii ah oo wuxuu u kala gudbinaa in allaale intii ku dhegan macnaha oo badina aytoo waxba ka bedelin ayuu nin walba maarkino ma ishu gelinaa hadda meel kale kaa tuso waxaa dhigi kartaa duubay bareeska mataqaanaa ama qaybaha korontada kaleeto markaa korontada gelisid korontada waxay kasoo qaadataa derbiga ka qaadataa haddii 4 aalad 5 aalad ay ku dhegan yihiin intaba macnaha waa bahalkan dabki isku sii u gaari karaa hadba laakiin dabkaas waxaa isticmaalaa kii daaran marka habka haddii computerkan uu diray traffic uu diray oo computerkan PC1 traffickan hadafkiisii uu ahaa inuu gaaro macnaha ugu talagalay PC2 kulligood macnaha way gaaraya traffickaas macnaha wada gaaraya markii including macnaha kan xataa hadii la fiiriyo dhinacan oo mataqaanaa routerka uu kasoo xigo macnaha dhinac walba uu diraa laakiin mid walba wuxuu garanaya asaga inuusan ku soconin oo macnaha wuxuu ka fiirinaa baalkan frameka macnaha wuxuu ka fiirinaa address ku yaalo oo MAC address liilaa asna gooni u sharxi doona mar kale marka computerka markuu isfahmo asaga inuu yahay uu kasoo jawaabaa laakiin kuwan kaleeto inaysan ayaga ku socon markay arkaan way iska tuurayaan macnaha iska tuurayaan oo ma inaysan dan ugu jirnay ayaga oo loo wadin way fahmayaan saas daraadeed way ignore garaynayaan tan marka waxay leedahay dhowr qasaar ay leedahay oo meeshii ay la timid dhowr qasaaro ay leedahay kow waa networking marka la hadlayo sideeda waxaa focus diiradda ugu badan waxa ugu weyn oo mataqaanaa oo ahmiyadda la siiyo waxa waa security-ga oo macnaha baalkan inuusan meeshii wax qalad oo iska dhicin oo daatadii trafficgii aan dhex lagala wareegin ama laga fiirsamo saas camal labo waxaa waaye in markino bandwidthka ama se mataqaanaa mawjada waxaan dhahaa adig bandwidthkaas la isticmaalayo in ay yaraato in allaaliyo markino intii la yarey kara la yareeyo laakiin haddii oo bandwidthkii kulligood la wada isticmaalo macnaha meeshii jama ka imaan oo mataqaanaa oo daatadii si
meesha islo aaday noqonay aad iyo aad maaragtay u tabar yaraana weli afar computer hadday yihiin waxay waa macquul laakiin waxaa dhigta boqolaal computer hadday noqdaan ka waran intaas waxaa kaloo sii dheer habka waxa ku dhegan oo dhan waxaa laisku yidhahdaa hab wixii ku dhegan waa collision domain magacaas collision domainka wuxuu ka imaanaa macnaha traffic wuu isku dhici karaa maanta oo dhan matalan computerada qaabka ay ugu shaqeeyaan haddii aan kuu wax yar sii sharaxno waxa waa computer kasta waxaa ku dhegan net bahalkan waxaa ku dhegan wuxuu leeyahay bahalkan network card ama NIC NIC aa loo qoraa network cardkaas waxa waaye waxa uu leeyahay number u gaar ah oo lagu yaqaano kaas waxaa la MAC address la yiraahdo shirkad kasta oo soo sameysana way kusoo sameysaa computer kasta ama wax kasta oo mataqaanaa network ama internet isticmaala ama LAN isticmaalaya waxa uu leeyahay mid u gaar ah unique oon lala lahayn waa hard coded macnaha waa shida kusoo sameysa waa ilaa iyo 48 bit ama 6 byte macnaha oo lambaradaas 0100 waa saas camal ah waaye waxaa loo qoraa macnaha qaabka loo qoro marka waxa waaye waa hexadex taas waa noo imaan doontaa mar kale laakiin adi muhiimadda waxaa ogaataa inuu mid walba network card kasta inuu leeyahay number u gooni ah macnaha oo say keliya lagu yaqaano saas daraaddeed kuwaan isku mid maaha markii computerkan oo wax diro wuxuu ku daraa cinwaanka computerkan networkaas ku daraa markuu ku daro switchka asaga markuu yimaado ma garan karo inuu computerkan dhinacaas ka xigo balse wuxuu sameynayaa kulligooda uu kala leexinaa mid alaale marka hore ninkan asaga is garanaya inuu asaga ku socdo kuwaana markay arkaan cinwaankooda nafsan waa iska tuurayaan kana waa soo celinaa marka uu soo celiyo naftigiisa habkii markay waxay soo gaaraan kulligooda haddana u kala diraa macnaha ma garanayo kan keliya u dir kii kusoo diray laakiin waxa uu yaqaanaa keliya godkii uu ka yimid ha ku celin ee kulligooda wada dira waxaa marka dhici karta laba computer in isku mar wax diraan taas markaas collision ay keeni kartaa collisionkaas marka oo keeno meelahaas oo collision oo ka dhici kara marka waxaa la yidhahdaa collision domain la yidhahdaa habkana wax alaale wax ku dhigan collision markas oo ka dhici karaa ma aha inay daatadii lumayso oo qaab kaleeto ayadoo loo ilaaliyaa jira matalan kaararkan oo kaleeto oo network cardka waxa ay isticmaalaan technology baalkan algorithm la yidhaahdo CSMA/DT macnaha carrier sense multiple access with collision detection taas macnaha waa algorithm oo mataqaanaa oo asalkii standard oo mataqaanaa ethernetka uu leeyahay ethernetka uu leeyahay waxaana waa ay ku salaysan tahay computer kasta intuusa wax dirin marka horeto wireka dhegeysanaa fiiladu dhegeysanaa wax oo traffic ama ku socdaan maya haddii dabcan ay haa tahay wuu sugaa oo computerka oo wax diraayo haddii uu arko inuu computer uusan wax dirin oo fiiladu ay bannaan tahay markaas asagaa tiisi diraayo waxaa marka dhici karta laba computer in isku mar inta dhegeystaan ay u arkaan in markin oo trafficii aan hadda la dirin labadooduna ay soo diraan labadooda markii ay soo wada diraan habkii macnaha asaga total wuu iska gudbinaa waxa laal wixii soo gaara no problem kii mid walba kii kasoo gaara maahane intii kaleeto u gudbinaa waxaa dhici karta marka computerkii macnaha loo soo diray kan inuu kan u diray kanna inuu kan usoo diray macquul ama kan ay u wada direen wax walbaa iska dhici kara labadii marka traffic markay isku dhacaan voltageka wireka kor u kacay wax yar mid walba marka waxaa kusoo laabanaya network cardka mid walba qaybtiisa receiveka oo wuxuu ku dhejiyaa macnaha wax yar oo ku signal ku garan karo marka mar allaale marka collisionka oo dhaco oo ay arkaan mid walba wuxuu sameynaa labadii computer oo wax diray way is yaqaanaan waxay dareemayaan inuu shil ka dhacay meesha oo trafficii ay direen markii oo mataqaanaa shilkaas ku dhacay mid walba marka wuxuu diraa jump signal waxa la yidhaahdo oo ogeysiinayo wax kasta oo ku dhegan meeshaan habka ku dhegan shilaa meeshaan ka dhacay hala sugo macnaha intaan kala qaadanayno macnaha dhaawaca u dhex mid walba markaas wuxuu qabsanaa computeradii wuxuu qabsanaa mid walba waqti yar oo qabsanaa waqtigaas oo random iska ah macnaha mid walba isku waqti ma qabsanayaan midkan matalan intaasoo millisecond hadduu qabsado kan kale wuu ka duwan yahay waa iska nasiib macnaha uu qabsanaa saas daraaddeed probabilityga mar labaad inay isku mar soo diri karaan haddana aada u yarta laakiin jamkaas la diraayo mid walba waqtiga uu qabsanayo collisionkii dhacay wixii dib loo soo diraayo wixii dhan waxay dhib weyn ku keenayaan baalkan bandwidthkii isticmaalkeeda oo waqti badan meeshaas ku lumaayo networkiina slow noqonaa computerada markay badan yihiinna dabcan mid allaale markay kasii tira bataan all computer hadday tahay probability inay laba computer isku mar soo diri karaan aaday u badane waqtiga la sugayo aada u badana macnaha saas daraaddeed habka waxa waaye kuma wanaagsana baalkan networka maanta jira intaas waxaa sii dheer
dhinaca security oo kaleeto habka dhinaca security aad ugu liitaa oo ku xun yahay maadaama waxa dhan isku hal collision domain ay yihiin signal kasta oo la diro oo kulligood wada gaarayo keli waxaa ku filan mid qofka halkan jooga haddii programmada xataa kuwan freegayska oo network analyska sida wireshark oo kaleeto haddii computerka inta la geliyo hadda analysis aan ku sameeyo waxa traffic meeshaan ku socdo kulli wax kastoo meeshaan jooga waa ii muuqdaan saas daraaddeed macnaha dhinaca security-ga waa riski aada waxa keliya dhihi karaa wuxuu ku fiican yahay haddii aa matalan network analysis sameynayso oo kaleeto waa dhici kartaa inaa markaas ugu tala gashaba inaa compuuteradan kale iyo qaab ahaan networkiisa u shaqeynaya iyo trafficka isdhex maraya waxaas oo kale network analysis haddaad sameynayso wiresharkaas oo kale isticmaalaysa waxa lamidka waa macquul waayo taas oo kaleeto laakiin sida caadiga for security reasons habka waxa waaye waxba ma galo macnaha taasna waa looga fiican yahay marka ciladahaas horta oo habka leeyahay see loo xali karaa intaan sida loo xali kara gaani bal horta hal mar aan tuso waxyaabaha in sheegaya iyadoo aragti ah matalan tusaale ahaan hadda computerkan PC1 haddii uu hadda damco inuu la xiriiro ka soo qato computerkan oo kaleeto bal qaabka uu baartaan uu wax u xalinaya aan aragno dabcan filterska hadda iska fiiriyo okay good waay okay haddii aan haddana hadda hadafkiisa wuxuu yahay keliya inuu computerkan oo wax u diro arki doonaa karina wax u diro waa hadafka kow signalka waa soo xaggaan soo gaaray okay marka labaad haye kulligooda waa dira marka hadafka fiiri hadda markaa fiirsid kan iyo kan waxa waaye data aysan dan ku lahayn dantooda ku jirin saa daraaddeed calaamadda u saaran tahay wax maalaa yacni u tegey macnaha bandwidthkii meesha waa la isticmaalo waqtiga uu sii socday kan wax ma diri karin kanna wax ma diri karin kanna wax ma diri karin waaya computerka marka asaga kan wuu isgartay asagay ku socotay kuwan annaga nooma socotay lee way tuurayaan laakiin kan ay ku socotay wuu soo celinaya waa soo celiyey habkii soo gaartay habkii markay soo gaartay hadda weli habka waxa waaye waa nacas aan dhihi karnaa ma garan karo ninkaana soo diray asagii wuu celi laakiin wuxuu sameynaya god kasta ilaa kii ay kasoo laabatay waan aragna markaan waka hadda markaa fiirsid kulligood kuwan haddana waxay garanayaan annaga kan nooma socdo kii lahay keliya dhaha okay taydii waa markaa fiirsid inta traffic ay shuqul ku lahayna hadba soo aaday ka laabanay macnaha waana waqti lumis waay taas oo bandwidthkii loo dagaalamayay waa yaraynaysaa networkana labadaas wax security-na iyo bandwidthka wax lagu dagaalamo taqaanaa in bandwidthkan in alaalay intii maaragtay firaaqo laga dhigi karo ama la yaray karo bandwidthka la isticmaalayo si markiino mid walba wuxuu isticmaalayo ay u yaraato isla markaana fast ay ugu noqoto oo boos loo helo iyo dhinaca security marka labadiiba habka horta waa ku liitaa maxaa marka lagu xali karaa waa su-aasha maxaa lagu xali karaa waxaa lagu xali kari lahaa caqligan bal xogaa yar bounce garee videoga adiga isfiiri keligaa isweydii maxaa lagu xali karaa waxaan fila xataa haddii wax badan computer kaaga bilaabanayo inaad dhihi karto okay haddii bal habkan loo sheegi lahaa mid walba meesha uu ka xigo dabcan wixii dhan waa xalismi lahayn ninkan marka kan oo soo diro wuu yaqaanaa bs2 intuu godkan inuu ku dhegan yahay saas daraaddeed godkaana u diraa haddii kan loo soo diro godkaana u diraa macnaha waa wax la fahmi kara waana ka maqan tahay janiskaas waa ka maqanya runtii baalkii muxuu ahaay habka waa ka maqanya laakiin haddii asaas jawaabteeda ay tahay waxaa gashay shaqadii switchka waxaa ahaya markaan time limitkii ahaya oo maaragtay waqtigii la duubi karay saas daraaddeed qaybta kale ayaan u dhigi doonaa switchka insha allah tacaala waa qaybteena labaad wabillahi tawfiiq insha allah taala wixii comments waa kusoo dhiibi kartaan waxaa ka fahantan insha allah tacaala allah ku anfaco ana allah jaragisiiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu